waxyaroon ka soo wareegtay markii guud ahaanba deegaankeena heer gobol ilaa heer tuulo loo kala diray xubno khabiir ah oo ka kala socday xafiisyada horumarinta heer deegaan heer federaal iyo hay'adaha deeq-bixiyaasha adduunka si ay ugu soo kuurgalaan nolosha dhabta ah ee ay ku nool yihiin bulshada deegaanka ee dhinaca cunnada caafimaadka waxbarashada biyaha iyo wixii la halmaala ayaa kadib markii ay soo dhameeyaan daraasadyadii ay soo sameynayeen ayaa waxaa kulan loogu furay hoolka shirarka ee xafiiska beeraha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ah ee deegaanka si la iskula meel dhigo daraasadyadii iyo waxyaabihii kala duwanaa ee ay ku soo arkeen goobihii ay tageen waxaana ugu horreynba kulankani furtay madaxweyne ku-xigeenka ahna wasiirka xafiiska beeraha iyo horumarinta kheyraadka dabiiciga ah ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya Marwe Sucaad Axmed Faarax oo ugu horreyn u mahadcelisay ka soo qaybgalayaasha kulankani ee shaqooyinka kala duwan ka soo qabtay gobolada degmooyinka iyo tuulooyinka deegaanka sidaad ogsoontihiin daraasad ayaa la soo sameeyay bay ahayd daraasadkaas ku wajahan 6 bilood ee soo socota marka hadda reportiga la soo jeedin doona reportigaas wixii ka dambeeya inta si fiican u dhageysataan waxa loo baahan yahay inaad ka qayb qaadataan oo waxyaabaha isleediin way ka dhiman yihiin xafiisyada inaad ku soo kordhisaan oo ku dartaan dhinaciisa wasiir ku-xigeenka xafiiska ka hortagga iyo diyaargarowga masiibooyinka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya mudane Yaasin Cumar ayaa nooga warbixiyay ujeedada kulankani iyo daraasadyadii kala duwan ee ay soo sameeyeen xubnahani halkan noogu furmay assessment-ii la soo sameeyay deegaanka ee ahaa dayr assessment-iga kaas oo maartay ahaa 6 bilood ee soo socda qaabkii maartay baahida raashimada sidii maartay loo soo qiimeyn lahaa kaas oo ay ka soo qayb galeen dhammaan hay'adaha samafalada ee maartay deegaankeena jooga assessment-gan oo ah maartay mid lagu ogaanayo maartay baahanayaasha deegaankeena daraasaadkani ayaan ahayn mid hadda oo kaliya la qabtay balse uu yahay mid sanadla ah oo sanadkiiba la qabto 2 jeer oo kala ah guga iyo deerta si loo darso xaaladda dhabta ah ee bulshada deegaanka sida uu carabaabay wasiir ku-xigeenka xafiiska ka hortagga iyo diyaargarowga masiibooyinka ee dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya isku soo wada duuba kulankani ayaa markii uu soo gabagaboobo waxa la filayaa inay ka soo bixi doonaan qorshayaal lagu sii xoojin doono deeqaha kala duwan ee la gaarsiinayo bulshada deegaanka